السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تويدين سلامي دنيا دعلة إذا مير على ميشة كجوكتان عدد كعرنتي channel كنا هلقان عن ADR official media وهاي إذن ليه سبسكرايب لايك كومنتي نسي وهان هاي ولا لها هذا خروجيت يهاي ما أنتوا هاي إذن هاينا أو مس كانوا سارنتاي هذا لو أو لا هذا الهايو كحوتيجا هاجردير كحوتيجيسا إنتين قدام بين دونا قابكين ونقون دونا maadaama qaxootiyada ama bulshada weyn hagardheer ku nool waxa hadal hayaan in mardhow la gali doono tirikoobkana waxa oo hadalhayn ama war xaafadad nagu soo gaaray in horhayga oo kaarka ah in la duri doono markii ay soo qaadanayaan kaarka raashinka halkan waxa ila fadhiya saaxiibkayga Suldaan Sare oo waxaan doonayaa in aan ka wareysto sida ama walwalka walbahaarka ay ka keenay dadka ay ku nool hagardheera waxaan leeyahay saaxiib assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh adigoo mahadsan waxaan rabaa in aan ku weydiiyo magacaaga dhameystiran manoo sheegi kartaa mise manoo soo baasi kartaa magacayga waa Suldaan Kabiira Suldaanka daacadda waan dhawahay Suldaan waa maasantay maadaama lagu dhaw Suldaanka daacadda maxaad ka haysaa war ah oo qaxootiga hagardheer maxaana la hadal haya maalmahan maadaama oo xaaladda qaxootigana ay qasan tahay saddexda hero hagardheer ifo dhagaxli saddexda hero inay maadaama ay qasan tahay maxaa hadal hayn oo la haya marka aad isleedahay maxaa war ee naga haysaa marka maadaama aad tahay Suldaanka hagardheer iyo wallahi ma sha Allah koobkan koobii hore uu ka duwan yahay صح maxaana ugu dugan yahay aad isleedahay maxaana horta isbedel ka yimaaday hagardheer ama qaxootiga hagardheer maxaa isbedel ku yimaaday aad isleedahay waxa isbedel uu ku amaaday dadkii sidii hore loo gali jiray koobka caadi ku ahaan jiray dawladda Kenya waxay dhahday qaxootiga dhamaantiis waan raraya wadankoodan geenaya saas ay dhahday okay ma isleedahay marka hadal ma ku soo gaaray maadaama horta bulshada weyn oo hagardheer ay ku nooshahay ama saddexda hero waxay hadal hayaan kaarka raashinka qofka u horeeyo markii soo qaadayo raashinka cirbada coronavirus ee la isduraya le marka hadalkaas maxaa ku jira ama hadalka oo ku soo baxay miya dawladda Kenya ama macnaha hay'adda UNHCR miya ku soo baxay ama dadka le macnaha isku wata maya cudurkan coronavirus waa dunida idil buu saameeyay markii daawadiisana waa in isku duro anaa isku soo duray haddii Suldaan Sare waxaan waad ii sheegaysaa adiga oo Suldaanka oo hagardheer ah daawada adiga noo bilaaway miya ana bilaa waxna kuma noqon adiga daawada adaa iska bilaaway wana waxna kuma noqon okay waa daawada ka hortaga cudurka coronavirus oo musiibada wata very good absolutely right waa saantay ma sha Allah okay waxaan rabaa tirikoobka maalintay noqotay sideen u dhici doonaa ma laga yaabaa bulshaweynta hagardheer ay ku nooshahay in tirikoobka meesha hore laga gali jiray sanadooyinkan soo dhaafnay meesha laga gali jiray ma laga yaabaa dhammaan bulshaweynta xaggas inay isla tagaan niyo horta ma sha Allah tirikoobii hore uu ka duway saaquu sheegay tirikoobka hore caadi baa loo gali jiray dadka idil hadda waxay hadal hayaan meel kastoo tagto duq kastoo ku hormarto oo kabaan ama wax gadanayso waxay ka sheekeynaysaa inay tirikoobka ka sheekeynayso mar kastaba okay ma sha Allah ma sha Allah waad maasan tahay marka then haddii maxaa hadal ah la soo qaaday dadka baaxinayaasha ah gadaal ay ka yimaadeen 2020ka maxaa adiga hadal hayn ay kaasa dadkaas boona miya la siin doona ama maxaa oo xal ah idinka maadaama aad tahay macnaha xibin aad ka haysaan oo macnaha oo hay'adaha oo macnaha hogaankooda macnaha dib macnaha aad wax aad ka hayso horta niyo horta ma sha Allah ra'yi wacan oo wanaagsan baa saadashay ma sha Allah horta waxaa jiro dad oo jirto repatriation ay qorteen wadankooda oo aadeen oo sidii ay u maleynayeen aysan dhicin soo laabteen hadii aan maray balan qaadinin oo xooliis oo cunay inay waxba meesha ku lahayn oo boon had la siiyo oo raashin iska qaataan okay hadalkaaga ma sha Allah wuu adyahay dadka dadweynaha na daawanayo waxaan qoodsan lahayn horto Suldaankeena wuxuu ka sheekeeyay
qof ala qofkii oo macnaha oo kaarkiisa cunay in macnaha hadina dib u soo laabtay ilaa horaan waxa adiga ad dhahday aniga waxaan rabaa wadankayga rabo inaan aado sababta adiga wadankaad ad u aaday hadina ad ku soo laabatay ala qabtaa sooma then qof aaday oo baxay oo kaarkiisa cunay hadina dib u soo laabtay waxaan filayaa arabkiis waxaan ka dhadhamiyay in qofkaas kaar aan lahayn mar kalena kaar inaan la siin doonin saas aan filayaa haddee wadankiisa hooyo markuu ku laabanaya rajuu lahay marka haddii dadku ogtahay qaxootiga inay biyo haystaan oo free kaniimo waxbarasho ay ku haystaan absolutely right okay I have now understand waan ku fahmay kowde sultan horta qaxootiga arrimihiisa maxaad macnaha haddii ay galaan macnaha tirkoobka qaxootiga sidiis miyuu ahaan doona ama dib u dejin baa la siin doonaa horta niyo bii buro la kala bixi lahaa bii budo bii iyo buraan ku dhahay ha bii iyo bur ayaa loo kala bixi doonaa waa maxay biyahana waa oo qolode burkana qolode waay miyay kala bixin kartaa aha boqolkiiba boqolba Kenya dadka hadiyo aan waxay ka dhawaajisay inay deegaan yihiin ay kabaana ay leeyihiin magarno macnaha boqolkiiba konton oo waxaa dawladda Kenya waxay ku dhawaajisay in dadka waa boqolkiiba konton inay yihiin qaxooti aan ahayn inay deegaan ay yihiin okay kontonka kale maxay yihiin marka qaxootiga waay okay iyo aan waxay dhahday badana waxa oo aniga oo xinabay oo xujay waa deegaanka oo dadka kabaanaha okay absolutely right hadalka waan qanacsanahay waan ka qancay si toosna aan u qancay okay waxaan rabaa inaan ku soo jeesto way aniga hadalkaaga hadda waa ii qanciyayba waayahay qaxootiga dib u dejin inay helaan ma laga yaabaa way helaan waa Soomaa waa maxay haddii oo dadka oo macnaha haddii oo cusub oo kaarn aan haysanin oo kaarkooda aan cunin hadda imaadeen kaar inay heli doonaan ma luxuba waa laga yaabaa hadda dad oon kaar gelin oo weligood is gelin inay rajil ay lahaan laga yaabaa Soomaa okay waa maasan tahay horta hagar dheer coronavirus ma ku jira mise kuma jiro niyo wallahi lama sheekaro dadka bilaadanka waa daragtay bulshada markay ruux dad marqaama ahaan waa ogtahay inay sigaarkiis la cabaan oo wax kasta inay coronavirus uu jiro waa loo yahay Soomaali hadaan ahaynayna waxas ma aqoonsanin xawad kale isdeenaya okay qaxootiga waxa la leeyahay 2022 June ina ma closing ina la xiro ayaa lagu talagalay marka miyay kula tahay June in 2020 bishii 7 oo in qaxootiga dib oo loo macnaha oo la xiro miyay kula tahay muxirm fikra qaxootiga muxirm karo Soomaa laakiin maxaa loo dhahay marka qaxootiga macnaha in ilaa 2020 iyo labadii June ay ku eegayay qaxootiga hadalhaynta dadkana macnaha walaas ay qabaan إلا مقتى يدك وملا وان كران وطن قضاء وملا وان كران دت وحاول قدام بالصدن سنة دمان أو تقعد أي كلولين دبنا وجمال لا وان كران المه هذا أنت يبرتين جبيجا حاجة أو وطن قضاء هاي يجبيجا حد كينيا أي كلولين والله ما بيكلين مركب ما ينبه كرنا دت كهل كان لواتن أما صدن سنة يكون ولاين إن أي وطن قضاء أقول لابتان والله نيوتا نكست ودن كيسا وقف عن مالها yes absolutely right معنا قف والبودن كيس قف وقف عن مالها وارنت هذا لكن وهاي جبت دلنيرو او الصومالي اي تجين هدينا اي سوهين وين وحواي واحد فهم وين جبيجي فهم وين وحي برتين قحوتيه برتين سهوي وقروم هاي برتين سهوي ولي هدي هويدود waxa laga yaabaa inay hooyada isla jirin oo dad ahin ama qaraabo ay yihiin joogan hada hooyada ay joogto meesha macna waxa ilaahay in macnaha ilmaha oo dhalinyarada inta ay ka tagtay Soomaali ay tagtay mis wadankooda hooyo dib ugu laabteen jabiga haga ma fahansano then sis awgeeda ay ka kalifays in dib ugu soo laabtaan wadanka Kenya okay waa ma santiin asxaabta wararkeena xagga ay ku saabsana mar walbo xilli walbo ku xirnaa xilqaan